waxaan rabaa inaan warbixin gaaban ka siiyo kiiskii dilka ahaa Allah u naxariistay walaalkay atooraha badda uu ku geeriyooday sida aan horay shirkeyga jirayd ugu qabtay wax yar familkii walaalkay uu ka dhashay oo shirka jirayd u fahmay in ayaga lagu dulminayay ayaan rabaa nuxur gaaban inaan ka bixiyo shirkeyga jirayd waxa gundhig u ahaa saddex qodob oo ah number 1 in la cadeeyo in dilkan uu shabaab ka dambeeynin number 2 sida warkeygaba laga dheehan karay waxa muujinayay in gacan ku dhiiglaha gacanta lagu haayo ee uu yahay saaxiibkii number 3 shirkeyga jirayd wuxuu ku fadhiyay in wax la isku dagaalay oo ninkaas walaalkeena lagu dilay ay ahayd lacag akoon ku jirtay oo la rabay in la qaato ama la qaybsado laakiin asaga ninkan gacan ku dhiiglaha ah sidoo noo sheegay waxaan cadeeyay shirkeyga jirayd ku cadeeyay gacan ku dhiiglaha wuxuu qoray inay isku dagaaleen lacag ani goobta ma joogin mana ogeyn laakiin habeenkii ninkii la dilay ilaa iyo 10 saac weynimo waxaan u soo jeednay sidii dilka lagu heli lahaa inuu shabaab ku dambeeyay waxaan ku dareennay hadduu shabaab ka dambeeyay ninka dhaawaca isbitaalka dadka kala soo baxay booliiska ahaayeen ninka markii la daaweeyay gacantiisa la duubay waxaa la soo baxay booliiska Soomaaliyeed oo CID keenay booliiska Soomaaliyeed xogay haayeen xogtii ay daba galeen waxaa cadaatay saaxiibkii inuu dilay marka waxaan u cadeynaynaa bulshada Soomaaliyeed oo ehelkina hadda oo wakiilka yahay kabtanka aan tusnay akoon ka mid ah akoonada uu furay gacan ku dhiiglaha uu gacantiisa ku furay oo password numberkii furay inay ku jirtay $50,000 akoon ay ku jirto akoon kalena waa furay waxa ku jirtay $3,300 waa $3,300 oo la haayo gacanta lagu haayo booliiska Soomaaliyeed gacanta ku haayo waxa dhiman oo wali aan la baarin akoonada dahabka iyo shirkadda Taaj hadda booliiska Soomaaliyeed intuu gacanta ku haayo telefoonada lacag ku soo dhacaysa oo hadda $130 oo shalay soo dhacday marka bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ehelka walaalka Cismaan waxa xaqiijinaynaa annagu dhibane iyo eedeysanaan haynaa dhibane oo ah atooraha badda ehelkii oo ka cawanaya in walaalkoodii la dilay booliiska Soomaaliyeedna dhinacu ka cawanaya atooraha badda wuxuu ka mid ahaa xibin fircoon ka ah booliiska Soomaaliyeed oo kaalin mugle uu ka qaadanayay aan ku tirinaynay dadka booliiska Soomaaliyeed u qaabilsan yaani tadawuca ama dadka inay kaalmeeyaan marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed ee ka fahantay qaladka shirka jiraa'id oo ehelka sidayba ka sheegeen ka soo cawaadeen shirkeyga jiraa'id kuma qotomin inaan qof ku eedeeyo kuma qotomin inaan ku cadeeyo in lacag la isku dagaalay sida warkeyga ka muuqato waxaan iri cadeynta laga qoray gacan ku dhiiglaha wuxuu sheegay inay lacag isku dagaaleen lacagtana waa aragnay annaga lacagtana gacanta lagu haayaa maxkamadaana go'aanka gaari doonta maxkamadda horgeyn doona eelka anaga u wacnay markii aan media ka aragnay eelkiyo leh lacag iyo waxaas la isku qabsaday maba ogeyn ayaga waa runtiis hadda maba ogaba asaga numberka markaa tusnay lacagta tusnay waa fajacay waa yaaban yahay marka ogaal darida Soomaalidu degdeg ka batay iyo yaani ka hubsashay malaanay ku dhacdaa laakiin booliiska Soomaaliyeed marna muhiim goowin marna ma gefin walaalkay dhibana booliiska ah ninka la dilay waa booliis eelka ka soo koob booliiska dhibana sababta nagu kaliftay in 24 saac kiiskan ku soo ilaalno 24 saac ku baarno 24 saac ku soo cadeyno booliiska Soomaaliyeed ani iskama hadlo markaan waxa ka hadlaya barnaamij aan soo dhirandhiriyay taliya soo maray saraakiil soo maray la soo baaray waay marka walaalkayna wixii intaan sheegin in la wadaagna hadii uu rabay sharciga noo diiday sharcigu wuxuu nafara dhibana iyo eedeysana ina u kala cadaalad falno waxaan u xaqiijinayaa bulshada Soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhalinyaradooda ku kalsoonaadaan aqoontana waa leenahay hadii dhaqaale ahaan dalalka caalamka aan ka liidano aqoon ahaan waa la sinanahay maalin baynu gaari doonaa ay meel walba kaamil siisi ku xiran tahay wax walbana la cadeyn doona insha Allah waana mahadsantii